إلهي أتصبح كرجينا جنة الفردوس العليا فأرجينا حور العين يقوم حي رجينا يعني Al-Shabaab have been designated as a terrorist organization. waxaan oo wanaagsanaa qiyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin waxnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuree leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta guurdoonkaana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabtaa siina shargareeya waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa in maal adduunyo uusan filaynin ilaahay inuu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana eeba uu dhaafaa jannatul firdaws walaana ilaahay uu ku casuumaa xaasidka waxaan leenahay wa min sharri حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحاكودا بين يهوك قصاره ربي سبحانه وتعالى عن كبر ينا انت حنوصا إنه إلهي حنونك وكدر القعداء عافمان وقوب دلاء ومضى الصوماليين ميرو بيجوكتين إلهي قرقار كيسا النسر كيسا إن حريستي سأوسيا وحنيق الدونا بتاريخ ذا متكمدة هقامياشا حلقان وقصامين تبضان إسلامار كان اللقور راديس بدن يهي إيجيس كأفريكا وهقامياها الشباب أيضا كدابان دونتان موقال كتاريخة عجيبة أو كوادنها بنولدك هجاميها الشباب بدليه هجاميه كورية مريكان كيدلين أحمد عبدي أو محمود جوداني كاس أو شباب كيو يقانين شيخ مختار عبد الرحمن أبو زبير دقال يهنذا دقاق على الشباب أيا دقال علوس وحاكولة جرا ودمضر قلبيتك أو هرمود أيو تهاي دولة مريكان لكن وليد قبرة حق أمانك وحيشيغا يعني أودا على الشباب يجرتو وحانا دادك قاركيس أرنتاس يكون معنينا يعني قددها أمانك يولي بقابك amniga ee al-shabaab ay u dhisan yihiin waxaana qayb ka ah in qofka al-shabaab ka tirsan uu la baxo ilaa 3 magac 4 magac waxaana kamid ah dadka magacyadaasi la baxay hogaamiyaha waqtigan al-shabaab hogaamiya Abu Ubayda hadaba Abu Ubayda magacyada uu la baxay iyo waliba magaciisa saxda ah ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale warbixin sirdoon oo la helayo oo sheegaysa in dhowr mar hogaamiyaha al-shabaab Abu Ubayda uu yimid magaalada Muqdisho sidoo kalena lagu daaweeyay dhowr mar isbitaallo waaweyn oo ku yaal magaalada Muqdisho uu ka mid yahay midka Turkida ee maamusha ee Digfeer haddana la yiraahdo Rajab Tayyib waxaana la sheegay in xiliyada la daaweynayay aqoon darro aawadiisa loo daaweeyay laakiin aan la ogeyn inuu ahaa hogaamiyaha al-shabaab qofka isbitaalladaasi lagu daaweynayay waana qayb ka mid ah magac bedelashada al-shabaab ee sameeyaan si ay u qaldaan umada kale waxaana al-shabaab ay ku jiraan dagaal xoogan kaas oo muddo Soomaaliya ka socda waxayna naqdeen ururka ugu saameynta badan in ka badan 10 sano kuwaas oo Soomaaliya wali ka sii dagaalamaya hogaamiyahan ayaa bedelay kii ka horeeyay Abu Zubair Ahmed Abdi Godane kaas oo reer ahaan ka soo jeeday beesha Isaaq Arab isla markaana deegaan ahaan ka soo jeeday magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland Ahmed Diiri Abu Ubayda ayaa la sheegay reer ahaan inuu ka soo jeedo beesha Gaadsandir waxaana la sheegay inuu ka soo jeedo deegaanka Soomaalida Itoobiya laakiin muddo uu ku noolaa magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii ka barbar dagaalantay ururkii Al-Ittixaad waxaana la sheegay hogaamiyaha al-shabaab Abu Ubayda inuu ka qayb galay dagaal ka dhacay gobolka Gado oo Al-Ittixaadka ay kula galeen halkaasi ciidamada Itoobiya shaqashamaadkii waxaana sidoo kale uu ka mid ahaa ururkii Al-Ittixaad ee ka dagaalamay gobolka Bari kuwaas oo mar qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed Abu Ubayda waxaa magaciisa runta la yiraahdaa Ahmed Diiriye waxaana la sheegay in shaqashamaadkii uu ku lahaa magaalada Kismaayo xarun madrasa islaami ah oo dugsi Qur'aan iyo waliba isku furana waxaana la sheegay in muddo halkaasi macallin ama maamulo uu ka ahaa iskuulka ku yaal Kismaayo ilaa 2006 aasaaskii midowgii maxkamadaha islaamka dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa si weyn u yaqaan Ahmed Diiriye hogaamiyaha al-shabaab laakiin uma yaqaaniin inuu yahay Abu Ubayda maanta hogaamiyo inuu yahay Ahmed Diiriye shalay ahaa maamulaha madrasada islaamiga ee ku taalay magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose sidoo kale Ahmed Diiriye hogaamiyaha al-shabaab Abu Ubayda waxa si weyn u yaqaan shacabka ku dhaqan gobolada Bay iyo Bakool waxaana xilli fog uu ahaa gudoomiyaha ama walaayada Bay iyo Bakool ninka xukuma waxaana Ahmed Diiriye xilligaasi loo kasi jiray Sheekh Mahad wuxuuna ku shaqeyn jiray xarunta magaalada Beedhabo iyo waliba deegaanada kale ee gobolada Bay iyo Bakool ee ka kooban tahay wuxuuna ka qayb
geli jiray shirarka caadiga ah kaas uu la geli jiray qaybaha bulshada ee ku dhaqan gobolada Bay iyo Bakool waxaana si fiican u garanaya Sheekh Mahad dadka ku dhaqan gobolada Bay iyo Bakool laakiin ma oga in Sheekh Mahadkii shalay ahaa gudoomiyaha gobolada Bay iyo Bakool ee al-shabaab in maanta uu yahay hogaamiyaha al-shabaab waa Sheekh Abu Ubayda muusan ka tirsanayn hogaamiyaasha sarsare ee al-shabaab ama Sheekh Mahad ama Axmed Diiriyaba laakiin waxaa la sheegay in uu ku helay hogaamiyenimada al-shabaab warqad uu qoray hogaamiyihii ka horeeyay Abu Zubayr kaas oo la sheegay in gacanyaro uu ahaa waxaana Abu Zubayr uu ka dardaarmay hadduu uu dhinto in sandalada hogaamiyenimada al-shabaab uu qabto Axmed Diiriye Abu Ubayda taas oo keentay in hogaamiyaashii al-shabaab ee la filayay xilka inay qabtaan ay qaban waayaan isla markaana si fudud uu ku soo baxo Sheekh Axmed Diiriye ama Mahad ama Abu Ubayda ama Sheekh Cabdiraxmaan kaas oo hadda hogaamiyaha al-shabaab hogaamiyaha kooxda ayaa la sheegay inuu yahay nin aad u adag isla markaana aan wax tanaasulaad ah oo aan ka muujinaynin mabda'a ay aaminsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab kaas oo ah in Soomaaliya iyo waliba dalalka kale adduunka oo dhan laga taago calanka madow waxaana Axmed Diiriye la sheegay inuu yahay nin aad sidoo kale ugu adag in amniyaadka al-shabaab ay fuliyaan howlgallada dilalka qaraxyada iyo waliba in al-shabaab ay qabsadaan deegaano badan oo koonfurta Soomaaliya dhaca waxaana Abu Ubayda la sheegay in uu matalo hogaamiyihii asiga ka horeeyo mayalka adka Mareykanka dileen Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu Zubayr oo loo yaqaan Axmed Cabdi Godane haddaba Abu Ubayda ayaa awoodda kooxda dhan ay hoos imaadaa mana jiro qof ka daba hadli kara hogaamiyaha al-shabaab waxaana madaxiisa Mareykanka ee dul dhigeen lacaga aad u tiro badan laakiin waxaa lagu wareersan yahay Abu Ubayda Abu Ubayda waa Axmed Diiriye ama waa Sheekh Mahad ama waa Cabdiraxmaan waana midda keentay in lagu jahwareero shakhsiyaadka iyo waliba dadka ka tirsan al-shabaab kuwaas oo magacyo badan la baxa si aan loo aqoonsanin heebtooda iyo waliba qofka ay yihiin laakiin Mareykanka ayaa kol hore dilay hogaamiyaal badan oo al-shabaab ka tirsan kuwaas oo magaca sawir ahaan aan lahaynin magac ahaanna ku shaqayn jiray magacyo kale sida Saalax Nabhaan oo ku shaqayn jiray Macallin Cali iyo magacyo kale Cabdalla Fasuul oo magacyo badnaa oo ciidamada dawladda ay ku dileen ex control iyo waliba hogaamiyihii al-shabaab Abu Zubayr oo magacyo badnaa iyo shakhsiyaad kale aad u tiro badan waxaana Mareykanka la sheegaa in sirdoonkooda si weyn ay ula dagaalamaan dagaalyahanada al-shabaab laakiin way ka guuleysan laayeen oo al-shabaab wali waxa jira awood weyn oo ay ku leeyihiin geeska Afrika haddaba qayb kale oo xasaasi ah oo arintan ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa goor dhow ku soo biir page-ka si aad u heshid macluumaadka arimahan quseeya